ayadoo maalmihii u dambeeyay ay soo kordhayeen doomanka kalluumaysatada ee ka jalaabta xeebaha Soomaaliya oo lagu weysanaa badda halka kuwa kalena oo kamid ah shaqaalaha laga helay meedadkooda xeebaha Soomaaliya ayaa meesha loo yaqaano ceel waxrood oo qiyaastii u jirto 600 oo kiiloomitir xeebaha Soomaaliya waxaa laga helay mid kamid ah doomankii ku maqnaa badda waxaa xiliyadan oo kale badda Soomaaliya ka jira duufaano iyo mawjado maadaama lagu guda jiro xilliga badxireenka ah ee badda gudaheeda ay ka jirto khatar fara badan ayaa waxa isbuuciidan ku geeriyooday badda dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo dabaaltagay Maxamed Muxiidiin Xasan oo kamid ah waalidiinta Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay saameynta ay ku yeelatay dhalinyarada Soomaaliyeed ee baddu ay qaaday waxaan leeyahay qof kastoo Soomaaliya oo degan xeeb waa in ay caruurtooda ay baraan badda ay dabaasha baraan caruurta waxaan idinku la taliyaa xilligan waa xiran badxirin waaye soo abwaanka idin sheega waaye waxaanse idinku sii talagelaa haddoo 1 sano 2 sano haddoo jiro in aad dabaasha bartaan ilmaha abwaan Maki Xaaji Banaadir ayaa ugu digay waalidiinta Soomaaliyeed xilliyada lagu guda jiro badxireenka in ay ka celiyaan caruurtooda oo u soo dabaaltaga xeebaha badda Soomaaliya kuwaas oo kala kulma khatar fara badan waalidiinta Soomaaliyeed xanuunkooda calaalkooda iyo cabashadooda wayna taawanaysaa si toos iyo si dadbanba marka Allah subhanahu wa ta'ala naftii uu qaadayo oo khatarkeeda dhamaaday maalin ma loogu daraayo meesha ay ku dhimanayso oo ay nafteeda ku baxaysana Allah subhanahu wa ta'ala aku caalina xilli dhow ama door bilood muddo laga joogo badweynta waxa lagu waayay door doonyood qalabkii saarnaa digniin marka waalidiinta Soomaaliyeed waxa xaqiiqa ah badankooda in ay badda xilliyadeeda baaka yihiin badda door xilli waaye deer waaye izib waaye gu waaye xagaay waaye hadda waxaan ku jirnaa xilliga xagaayga waqti khatar ah waaye xagaay badda quweyskeed laguma degdego tawaal kas ama hakasin maxaa yeelay jiidmaal oo hoosey la dhahayo aku jiro badda Soomaaliya waa barwaaqo Ilaahan ugu banaystay taasi oo leh xiliyo lagu dabaasho iyo xiliyo kale oo lagu dabaalan karin waxaana u xilsaarnaan jiray ciidanka badda Soomaaliyeed oo ka shaqeeya ka hortagga khataraha ka dhasha badda iyo ka difaacidda cadawga soo hajuuma badda Soomaaliya Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho